nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo intiisa badan aynu ku eegi doono weerar ismiidaamin qaraxyo oo goordhow iyo mid toos ah oo goordhow lagu qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. weerar ismiidaamin qaraxyo ayaa waxaa laga maqlayaa xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. xarunta la weeraray ayaa waxay ku taala isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. warar hordhac oo soo baxay ayaa sheegaya in weerarka loo adeegsaday qof ismiidaamiyay halka warar qaarna ay sheegayaan in rag huwaysan ay gudaha u galeen xarunta oo rasaas ay hadda ay dhacayso. waxaana la maqlayaa gudaha xarunta rasaas aad u xoogan. ciidamada dowladda federaalka ee ammaanka guud ee xaruntaasi ilaalinayay ayaa iyagu isku dayaya inay markaasi si aad isaga caawiyaan kooxaha hubeysan ee weerar ku soo qaaday. qaraxyo dhowr ayaa laga maqlay gudaha xarunta wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare isgoyska Soobe ku taala iyadoo dhabaqa rasaasa meelo fogfog laga maqlayo. waxaana sidoo kale goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramaya inuu ka dhashay weerarka lagu qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee ku taala isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa Amisom ayaa ku guuleysay inay tagaan goobta isla markaana ay markaasi caawiyaan ciidamadii amniga sugaya xarunta. halkaasina waxaa laga maqlayaa dhawaqa rasaasta iyo waliba hubka aadka u culus. wasaaradda waxbarashada iyo waliba ku taala halkaasi ayaa dhowaan dhismo cusub lagu soo kordhiyay iyadoo ururka al-shabaabna horey halkaasi ay u weerareen. dad badan oo ku sugan goobta weerarku ka socda ayaa lagu soo waramayaa in iyaguna ay markaasi ay xaalad walwal iyo cabsi xoogan ay soo wajahday. laba qarax oo culus ayaa la sheegay oo isxigxigay in goordhow laga maqlay agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sida ay noo sheegeen wararkana soo gaaraya. warar hordhac ayaa sheegaya in markaasi kooxaha al-shabaab ay weerar qaraxa ku bilowday ku qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala aaga laamiyaraha Soobe waxaana gudaha u galay dabli huwaysan oo ka tirsan kooxdani. waa markii labaad ama markii koowaad oo la maqlay hal qarax haddana daqiiqado kooban kadib waxaa xigay qarax kale oo xoogan oo isla goobta ka dhacay kaas oo lagu sheegay inuu ahaa qarax ku xirnaa gaari ay markaasi ka degeen dabli weerarka soo qaaday. waxaa gudaha xarunta laga dhex maqlaya rasaas xoogan oo isdhaafsanayaan ciidamada dowladda iyo dableydii huwaysan ee weerarka soo qaaday. waxaa laga cabsi qabaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac marka la eego sida ay markaasi xoog badnaayeen qaraxyada oo laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. eeriyada weerarka uu ka socdo ayaa lagu soo waramayaa in dadka ku sugan ay isaga kala carareen isla markaana gebi ahaanba albaabada la isugu laabay xarumihii ganacsiga ee goobta ka agdhowaa. rasaas aad u culus ayaa laga maqlayaa gudaha xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee ku taala isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. waa markii labaad ee ururka al-shabaab ay weerar ismiidaamin iyo mid toos ay ku qaadaan xaruntaasi oo dhowaan dib u dhis lagu sameeyay. waxaa hadda markaasi wasaaraddaasi wasiirka ah Faarax Sheekh Cabduqaadir oo aad ay isugu dhow yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana qaraxyadan maanta lagu weeraray xarunta wasaaradda ay ku soo aadayaan iyadoo magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay fikirka xag jirka kuwaas oo ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada ee maalmahan shirka ugu socday magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya. xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta kacsanaan laga dareemayaa iyadoo markaasi isgoosyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ciidamo aad u fara badan la soo dhoobay iyadoo la xiray gebi ahaanba waxaana la joojiyay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka iyadoo goobta weerarka uu ka socdana ay markaasi buuxdhaafiyeen ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana goordhow gudaha xaruntaasi galay sida wararka qaarkood ay nagu soo gaarayaan ciidamada haramcad oo la sheegay in iyagu markaasi ay iska caabin xoogan ay kala kulmayaan ciidamada weerarka dableyda soo qaaday. qaraxyo ayaa ugu horeeyay waxaana xigtay rasaas xoogan. waxaana sidoo kale markaasi wararka aynu ka helayna goobta weerarka uu ka socda ay sheegayaan in gabi ahaanba halkaasi dadkii ku sugnaa isaga carareen. ururka al-shabaab ayaa waxa ay markaasi kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho iyagoo dhowaan weeraray hotel Xayaat halkaasina dad aad u fara badan ku laayay. weerarada al-shabaab ay ku soo qaadayaan magaalada Muqdisho ayay sheegeen inay markaasi aargoos ay uga tahay weerarada iyo howlgallada ka socda gobolada dalka Soomaaliya oo al-shabaabka lagu weeqay awoodoodii isla markaana
meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya looga qabsaday. Al-shabaab ayaa hadda baxsad ka ah gudaha dalka Soomaaliya iyagoo markaasi markan oo kale kordhiya dhagarta ay u geysanayaan shacabka Soomaaliyeed. qaraxyada iyo weerarada maanta ka dhacay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta ayaa tusaale u ah gumaadka ay shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan ururka Al-shabaab, iyadoo wasaaradda xilligii la weerarayna ay ka socotay shaqo markaasi loogu adeegayay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada waxbarashada ama ardayda Soomaaliyeed kuwaas oo qaarkood waxbarasho ka helay dalka dibadiisa. ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loo adkeynayay, iyadoo hay'adaha ammaankuna ay markaasi howlgalo kala duwan ay ka wadeen xaafadaha kala gedisan ee markaasi magaalada Muqdisho. weerarka dableyda hubeysan ee ismiidaaminta iyo qaraxyada ayaa waxaa haatan sidoo kale ay sii kordhayaan, iyadoo mararka qaarkood la maqlayo dhawaq qarax markaasi aad u xoogan oo marka ay rasaas 5 daqiiqo ay socotoba jug xoogan la maqlayo oo markaasi qarax goobta ka dhacay gudaha xarunta ahi. xarunta la weeraray ayaa waxay ku taalaa isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. wararka soo baxaya ayaa sheegaya in weerarka loo adeegsaday qaraxyo oo markaasi hore albaabka lagu dhuftay, kadibna ay dabley hubeysan ay ka degteen gaari gudahana ay u galeen xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. kooxda Al-shabaab ayaa iyaga sheegtaa mas'uuliyadda weerarada noocan oo kala ah ee lagu gala xarumaha dawladda, iyadoo dhawaan ay ahayd markii ururka Al-shabaab ay weerar xooggan ay ku qaadeen hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho. weerarkanna waxa uu ku soo aadayaa iyadoo markaasi muddo bil ka badan uu markaasi aasan yahay ama uu duugan yahay taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo lagu xasuustay in weerarada noocan oo kala gacan libaax leh uu ka geysan jiray, isla markaana uu soo badbaadin jiray dadka iyagoo sidaan oo kale ugu xanibna goobaha weerarada lagu qaado. ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan ayaa gaaray xarunta wasaaradda ee dagaalka uu ka socdo, iyadoo la maqlay qaraxyada iyo waliba dhawaq culus oo loo maleynayay in rasaas xoogan ay goobta ka socoto. ciidamada dowladda federaalka ayaa isku dayay inay soo badbaadiyaan mas'uuliyiinta iyo waliba shacabka ku sugan gudaha xarunta oo iyagu markaasi xilli loo adeegayo weerarka uu qabsaday. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dagaal xoogan waxay kula jirtaa ururka Al-shabaab, iyadoo meelo ka badan oo kamid ah dalka Soomaaliya laga saaray. waxaa ugu dambeeyay deegaanka Masaajid Al-Guduud oo muddo 2 toddobaad ay ka socdeen weeraro xoogan oo u dhaxeeya ururka Al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ciidamadu ay galeen markaasi xalay oo ugu dambeysay ay gacanta ku dhigeen haatanna howlgalo ay ka wadaan. ciidamada ammaanka magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen howlgalo ka dhanaa ururka Al-shabaab, iyadoo dhinaca kalena la kordhiyo xuuraansiga iyo waliba wardoonka hay'adda sirdoonka, iyadoo Maha Salaad uu markaasi uu shaqo badan ka qabtay hay'adda Niisa. guud ahaan daawadayaal aad kala socoteen channelka wanaaganta wixii ku soo kordha warka iyo weerarada ka socda xarunta wasaaradda waxbarashadana halkan ayaan idinkugu soo gudbin.